milatariga xooga badan ee wadanka Turkiga ayaa gudaha u galay wadanka Suuriya waxaanu qabsaday inta badan tuulooyinka iyo degmooyinka xadka la leh gobolka xagga Turkiga xiga waxaana tani ka dambeysay kadib markii uu Mareykanku si cad u sheegay inuu sameyn doono ciidan xoog badan oo magaciisana la yiraahdo YPG ayaa jabhad markii hore Mareykanku uu taageeri jiray oo kaliya hase yeeshee iminka wuxuu doonayaa inuu bedelo ciidan xoogan oo gobolkaasi ka arrimiya jabhadan oo asalkeeda ay leeyihiin dadka Kurdiyiinta ah ee deega gobolkaasi ayaa Turkigu waxa uu shaki weyn ka qabaa inay xiriir la yeelato jabhada inta badan Turkiga ka dagaalamaysa gooni-goosadka doonaysa la yahay PKK waxaana Turkigu si weyn u cambaareeyay kuna eedeeyay Mareykanku inuu khiyaamay heshiiskii ay ku ahaayeen iskaashiga xulufada ku ahaayeen waxaanu sheegay inuu cagta marin doono waxa laala iyo wixii uu Mareykanku meesha ka sameynayay tan ayaa caqabad weyn oo ku soo korodhay xulufooyinkiisu bahaystay wadanka Suuriya iyo kooxihii ka dagaalamayay maadaama ay iminka laba garab iyagina u sii kala jabeen Turkiga ayaa iminka bariyahan u dambeysay ciidankiisu sarakac weyn laga dareemaya kadib markii uu saldhigyo waaweyn ka samaystay bariga dhexe iyo Afrika waxaana taasi ay iminka ka jeedisay Turkiga rabitaankii iyo doonistii uu dabagalka badan ku hayay inta badan ee uu raadinayay inuu ka mid noqdo maalin wadamada midowga Yurub loo yaqaano waxaana iminka aad moodaa inuu soo nooleynayo dawladii Cismaaniyiinta waxaana hogaamiyaha Turkiga iminka lagu xantaa waa Recep Tayyip Erdogan hogaamiye aan la gaban aragtidiisa iyo waxa uu rabo tanina waxa ay muujinaysaa inuu haddii Turkigu goboladaas oo dhan gacanta ku dhigo inaanay madaxa qaadi karin jabhadaha ku kacsan ee Kurdiyiinta cid kastaba dana gaar ah ka lahaatee